الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وهمم لأننا خير الأمم قرآننا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم أطفالنا waxaan quraanka inuu ugu daaweeyay male dadku markay soo daalaan waxay ku leeyihiin dhakhtarka soo daalno wax kasta ka soo daalan bal quraankana hana lagu aqriyo ma quraankana hana lagu aqriyo ma aha taas waxa weeye marka hore intaadan gaalka aadin quraanka u tag gaalka inaad u tagto laguma diidana laakiin kuma daawadi runta hayda quraankana maxaa yeelay daawada aakhiradana saga daawada adduunkana saga bismillah wata ma iska furi karaa waxa la yiraahdaa ma jirto ragga ilaahay wuxuu dhigay xilaha orida iyaga dalqadeeda haya laba waa mid uun markayna su'aasha ku dheeraanin in ninka ay ka dhamaysato oo dalqada ay ka iibsato waxa loo yaqaan fiqiga islaamiga ama shariicadeena al-khulu' waxaa hore loo arkay ma walaalaha ahlu khayrka tabliiq iyaga u socda oo khuruujaya oo dacwo wada ayaa waxa dhacday waxay ka hor yimaadeen naag ku dhagan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا قضين هذا أنا وحي كهري ماذا لو أنه أسكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدي بوحي أركان بعد نين إناق أسكت الحمد لله مصائبته أيها كلا محايا الشر بعض أخف من بعض ويكلا فضودها بإسليه يعني نين وحكر هذه إناقنا وحكر هذه والله بشو لكن مركي أركان نين إناق وما الإسلام جوج الحمد لله بعدين بر هدي بعرك كل عظيم امرأة نين هداد أركتون نين رجعة ورجع خي وحوي هوني ونكسم بكذا بيسا هذا عرفت إن رجيس أساقس كهرين هوني بالله هرتيوي معناه أساسا بيش كل عبن المرأة الصالحة وكذا ذهب كنكاس ستة أما المرأة السوء نوحي عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير وبيدأه وعليس وين ماذا حلقة صار كذا لقى صار وكالته أيوة هو أنت مركا تهوني لبضن وحي المها بالبريسة iyo waxaad ku dhaqmayso waa inay isku mid yihiin way in telefishinka aad shidato oo musalsal aad fiirsato ilmiina xaggaad fadhiiso oo tiraahdo quraanka akhri adiguna aad akhrinaynin waa arrin khatar weeye وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دونيو إن خلافه وحا معناها أني كرهي بل وذا فربنا وناقصين بعد كم مشغولة مثلا هذه هوينة تقول كذا جوكتا يكون ده شو برش هذا إنترنت إنه جنبه هو علمي كل بكتاب كاردمه كل بكتاب كاردمه واحد كم مشغول إسا إن التلفون ما أنت دن أديك تهايسته إن تي في إذا ما أنت نهار فرد مسلسلات أنا نفع ولا حين يكون مشغول شو غير عرورت والدك يوفير سنة يا مرة أركان والدك علم يكون مشغول سنة سجل لفتيسو يكون مشغول يا برش الجعيل هذا دنك موجود وصعته وضبالته waad fududaanaysaa waayo biyihii baa ku sidaas ku dhan baa u socotaan marka dabaasha waana dheeraynaysaa horena u daali maysid biyahana ku sidaya dhankii aad u socotayna u socdaa waxaa la mid ah markaad biyo isku afkaartihiin iskuul isku afkaartihiin suuqa isku afkaartihiin aad joogto dhankaasaa wada dabaalanaysaa waxaad ku socotaa meel yaqiin ah rasmi aad u socotaa meel cayaar lahayn oo yaqiin aad ku socotaa sidaa darteeda hadda tawbada wanaaji dhalinyarnimadaada ha ku kadsoomin caafimaadkaada ha ku kadsoomin xoolo aad haysata ha ku kadsoomin nicmada alla subxaana watacaala ku siiya ha ku kadsoomin oo waxyaalahaas dhan u adeegso alla subxaana watacaala rallihiisa gaaritaan cudurka Soomaalida maaragtay qabiilku qofkii isagoo garanaya war dadkan islaynaya qabaa'ilka ee muslimiinta ah inay fidna tahay waxan kani ayaa maxaa ku khasbaya waxa ku khasbaya caadifadii qabiilka ka xoog badnayd ayaa ku khasbaysa ilaa marka dambe khayrka iyo sharka muslima sidoo kale ee aad mushaar ku qaadatid ama qof muslima inaad project ka dhigatid ee xoolaha aad ku cuntid xatman xoolahaas aad ku cuntay qofka muslimka ah sharaftiisa iyo been aad ka abuuratay maalinta qiyaamada naar baa lagu cunsiinayaa xoolaha aad laqlaqaysid qiyaamo naar baa la laqaysaa ay isu bedelayaan
haddaad dhar ka gadatid ama gaari aad ka gadatid adduunyada maaragtay qof muslima projecti aad ku qaadatay iyo xoolo aad ku cuntay inaad jaajuustay isaga wax u dhibtay sharaftiisa been aad ka sheegtay ee xoolo aad ku qaadatay maalinta qiyaamada labis naareed baa lagu gelinaya يسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم وحلم ضربك الله كسر هوية الله وحلم ضربك الله وحلم طربد الله وحلم ضربك الله كسر هوية الله وحلم ضربك الله بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تضبية تمنكي شعبان كنا فربغل السدحية صدنك هجر قوية ميلاده واللحذي بشي تضباط لبضا كني لبية تمنكا محاضرة دي سدحاد ويه تانيني مكقلينو عنوان كيدن وحويه هقاق عرورتا وحا سببوه هقاق لبدا والد si fiican baan ugu celinayaa waalidiinta say saani u ogaadaan cinwaankaasi muhiimkiisa hagaagga caruurta waxaa sabab u ah hagaagga labada waalid iyo sheekh maxamed idriis falay tafadal mashkuuran الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا كلن كنا إنه كدي وكلن بركيسا ألنا سبحانه وتعالى نحريستي سئية سكينة دي إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيه وحن إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنة يا كلن كان inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka dhigo kulamada khayrka iyo barakada iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xuskiisa la ysugu yimaado maalinta qiyaamana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu darajaadka kor ugu qaado waa galab jimco ah waa bishii shacbaan oo 17 ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu carabkayga iyo qalbigayga ku sugo kelimadda xaqa ah allana subxaanahu wa tacaala dhegihiinna iyo qalbigiinna u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulu lalbaab waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inay mawcido noo noqoto inay wacdi aniga ii noqoto inta aanay idinka idiin noqon ilaahina subxaanahu wa tacaala uu nagu anfaco kelimadda cinwaankeedu sida walaalkay u sheegay waxa weeye salaaxu alabnaa bisalaaxi alabaweyn ama haddii la soomaaliyeeyo wanaagga ilmuhu waxaa sabab u ah ama wanaagga ilmaha waxaa sabab u ah wanaagga labada waalid ama labada waalid wanaagoodu wuxuu sabab u noqdaa sida badan ilmuhu inay hagaagaan inta aanan kelimadda wax yar ka oran waxaan jeclahay inaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad ka mid ah aan dhegaheenna ay ku dhacaan waasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay caafimaad iyo hanuun ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu caafimaad iyo hanuun nooga dhigo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب اللهم اجعلنا منهم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعيناها بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد اللهم إنا من النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق
ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة والأخوات إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكله waxaan filayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu qalbi siiyey ugu deeqay qalbi nool ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu ugu deeqay dhaga wax maqla iyo caqli fikira in ilaahay subxaanahu wa tacaala waanadiisii iyo wacdigiisii ay ku dhan yihiin aayadahaas aynu isla akhrinay ilaahay kitaabkiisa oo aynu dhegaysanay waalidka wanaaggiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha ku islaaxiya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu noogaga sheekeeyey suurad kale ilmihii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hagaajiyey oo dad u adeejiyey bal nebiye u adeejiyey sababtuna ay tahay wanaaggii iyo salaaxii iyo cibaadadii aabbayaashood sida ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu lkahf uu noogaga sheekeeyey qisata nabiy llaahi muusa calayhi الsalaam وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا محل شاهدك وحوي ما شاء كقادنين كلمة أي كصاب سنتهي وكان أبوهما صالحا الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى وحيري آيات السقو كهالله إن الله سبحانه وتعالى يحفظ بصلاح العبد إلهي وحو كل وراكو إلاليا وكو حفظاه وناقة والدك صلاح العبد أما أضونك وناقيس ولده المهيس وولد ولده المهيس المهوض وعترته وعشيرته المهيس قرابديس عشيرديس وأهل ديراته حوله يددك كهر ريسان لدقن فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم فما يزال في حفظ الله أو فما يزالون في حفظ الله كما الزوليان إني كجران إلهي إلى لنتي سيدور الديسة انت أدونك صالحاي دحجوغو وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين بعلماء كما قعابان تابعين تواوين وي أصحابتي كقادتي علمك أبيسنا الصحابي بوا وحيري إني لأصلي وأنت كذا وصلاة بانت كذا فأذكر ولدي وحن حصوصتا المهيجي فأزيد في صلاتي صلاة ديدي بان كردي يا مرك صلاة ديدي أيان سيب بديا أنكر قاضى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وحو يسوي لي هاي آيادا وحا كسوغان دليل
على أن الرجل الصالح قفك صالح عمل كوناكسا يحفظ في ذريته إلهي وحو كدوراء أو إلالية ذرية ديسة وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرى بركة عبادة ديسي وعبادة سنة صلاة ديسي يا دعاء ديسي يا قرآن كيسي يا تهجد كيسي يا ذكر كيسي إلهي سبحانه وتعالى دور سنان تيسي حاران تسكر دور ديسي عبادة ديسي بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرى بشفاعته فيه وحي قاريسا شفاعة ديسا إيو بركة ديسو المهسي ذرية ديسا في الدنيا وفي الآخرة ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة يؤين إلهي سبحانه وتعالى درجاتك جنة إلهي ودرجاتك أغصر يكر أغقاضه لتقر عينه بهم لتقر عينه بهم سي إشي سوء أي أغرى حيسته أو يغق بوسته إلهي سبحانه وتعالى وحليه في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إلهي سبحانه وتعالى وحنوغ الشيكيي الضمديس الصالحين تأه الله سبحانه وتعالى ذريته ذو حفظي وناقنا أوسيي دعادو دي إنه إلهي سبحانه وتعالى كسيي وحنا إمام أهوغوه الرئيه نبي الله إبراهيم عليه السلام وأدعي ذريتي أدجيي بيت الله الحرام مركو إلهي سبحانه وتعالى نوغ الشيكي في سورة إبراهيم مقع عيسى سورة الله ومقع درج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم مركي حاسكيسي هاجر أم إسماعيل إيو ويلكيدي يرى ودجيي مكة أو كتجي أو كجستي أي دعاء كدعيستي إلهي سبحانه وتعالى نوح حفظي سيدي أفهمتي حاسكيسو أيا كدران سيدا حديثك كسوغان مركي ميشا ودجيي أيو كدغاقي وحي تري الله أمرك
ma ilaahay baa kugu amray inaad meesha nooga tagto cidlada ah oo lama degaanka ah wuxuu yidhi haa waxay tidhi idan lan yudayicanaa idan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu saa ku amray nama dayacaya iska tag adigu ma ahayn gabar aade duruus badan baa ku sugan xadiiska ma iimaankeedaad la yaabi gabadhaas ninkeedii meel cidlaa uga tegayo oo leh iska tag ilaahay haddaad nooga tagtay ilaahayna dayici maayo hadduu ilaahay ku amray ilaahayna dayici maayo iska tag ilaahayna ma dayicin oo waa kii ilaaliyey wuxuu ilaahay u weydiiyey markuu ka dhaqaaqay oo ducadaas uu ku ducaystay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas u barakeeyo aan beertana lahayn biyahana lahayn baadkana lahayn sidii baana ilaahay ka dhigay oo waa taa dadkii jeclaadeen oo gurigii ilaahay markii dambe uu amray ilaahay ka dhisay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu dejiyey ummulquraana ilaahay ka dhigay magaalooyinka hooyada u ahaydna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay ee barakeeyey ee beydkiisa u doortay allana subxaanahu wa tacaala durriyaddiisii halkaasuu ku beeray taasuna waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiisii ku xifdiyey ilaa yowmina hada ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun ilaahow mirahana ku irsaaq oo arsaaqda u keen ayuu ilaahay uga baryey ducadii nebi ibraahim ayaa ilaahay ku irsaaq iyadoon waxba ka bixin ayaa la keenaa miraha adduunka meel kasta ka baxa ilaahayna subxaanahu wa tacaala quraysh oo durriyaddiisii ah ilaahay subxana wa tacaala ugu midno sheegtay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan yujba ilayhi thamaraatu kulli shayin risqan min ladunna walaakina akarahum laa yaclamuun ilaahay subxaana wa tacala wuxuu miyaanay u jeedin xaramka aaminka ah ee nabadgelyada ah ee arsaaqda meel walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uga keeno ee halkaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu keenay wanaag kasta oo dhasha walaalayaal wuxuu ka dhashaa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala in loogu dadaalo addoonnimada oo addoonku addoon khaalisa uu noqdo ilmahaaga marka haddii aad doonayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xifdiyo adigu waa inaad ku dadaasho daacada ilaahay adigu waa inaad ku dadaasho ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdintiisa iyo awaamirtiisa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كوا كبقية إني كتغان ذرية ضعيفة أو وحبا هننكرين أو وحبا قبسنكرين هذا الوناكسن هكو هذلان إلهينا هكبقان هدي دونيان إنه إلهي سبحانه وتعالى durriyadoodana xifdiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu dhowro ha ka baqaan iyagu ilaahay cadaalad ha sameeyaan hadal cadaalada ha ku hadlaan aayadaha dhaxalka ayay kusoo dhex aroortay culimmada qaarkoodna waxay geliyeen inay ka mid tahay inaanu ilmaha u kala eexan oo qaarkood dhaxalka ama maaragtay wasiyo gaara iyo dardaaran gaara iyo waxyaalo gaara aanu siin qaarkoodna aanu maaragtay ka xarimin oo u diidin ee uu ku hadlo hadal wanaagsan ama uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka boqo laakiin cibradu waa cumuumka weeye aayaddu si caam ah ayay u sheegaysaa qofkii ka baqa ilmo durriyada oo daciifa inuu ka tago ilaahay ha ka boqo ilaahay ha ka cabsado sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ilaahay ku xifdinaya bal walaalayaal waxaynu ogaanaynaa oo qur'aanka ka dhadhaminaynaa nebiyada iyo dadka saalixiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilmahooda hagaajiyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay ama ducada uu ka ajiibay inuu ilaahay sabab uga dhigay waalidiinta hagaagooda iyo wanaagooda nebiyada inagoo qisooyinkooda ku jirna cajaa'ibka leh nebiyullaahi zakariya ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo la'aan buu ahaa markii dambena ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo saalixa ayuu siiyey laakiin sidee loogu ajiibay ijaabadu sidee bay ku timi meelo badan buu ilaahay subxana wa tacaala ku xusay suuratu ali cimraan suuratu alambiyaa iyo suurado kaleba ilaahay subxana wa tacala uu ku sheegay suuratu maryam ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryey wuxuuna baryey sida aayadaha ka muuqata duco khaalis ah oo qarsoon oo cibaado ku dheehan oo weliba ay muuqanayso sida culammada iyo mufasiriintu ay tilmaameen inay ahayd tahajudka iyo habeenkii qaybtiisa dambe inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo waqtiga faadilka ah waqtiga ilaahay jecel yahay ee nusuulka samaa dunya u soo dego ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baryo oo suuratu maryam horaankeeda ku sugan
إلهي سبحانه وتعالى وحليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا إلهي سبحانه وتعالى وحو أضن شاكتي ضنتيسا إي حالديسو سيدا أي تهي أي أضن شاكتي كبعدنا إلهي سبحانه وتعالى وحو ويديي إلهي سبحانه وتعالى إنو سيو فهب لي من لدنك وليا أي إلهي سبحانه وتعالى ويديست ذرية صالحين إلهي سيو إلهنا وحو بشاري ويل صالحة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لكن ملك لا يا إلهي سبحانه وتعالى سببت كحس لأن قرآنك إسقى إسفسرية الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وحليه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أقو أدونك حاسكي سكوتا أنت هيو meel kale inaan wax laga keeni hayna ilaahay inuu islaaxiyo toosiyo gabadha gabadha inuu ilaahay ku toosinayo ilaahay bari ilaahay ula noqo sujuuda ilaahay ku bari rabbi subhanahu wa ta'ala u bari u duceey ilaahay subhanahu wa ta'ala u carar gabar yahay ninku haduu ka qalloocay ilaahay weydiiso inuu ilaahay ku toosiyo rabbi subhanahu wa ta'ala wax walba gacantiisa ku jira wa aslahna lahu zawjahu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات صببتي بالغو علدي بالغو شيء سيدي إلهي محوغو أجيبي أسبابتا كانتي إن إلهي سبحانه وتعالى وذرية النسيو معجزة قبضنا وإصلاحيو خير كان إلهي بركيو محا كاني صببت الغو شيء قيب كم ذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ومدكوات كانوا يسارعون في الخيرات دد خير كودك دقه أي خير أردن عبادة صدقة وناق عملك صالحة دد أودك دقه أي أهاين وأنك قابن ويدعوننا رغبا ورهبا إلهينا وحي كبريان الله سبحانه وتعالى حال أي طمع جندي صدمعايان نارتي سنة كبقيان وكول والسيهين أي إلهي كبريان وكانوا لنا خاشعين دد خاشعين أي أهايان إذن رادي ولال هذا دونيسو إلهي دعاء إنه كواجيبه إلهي ذرية إنه إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى ذرية صالحة إنه كسيه كددال أسبابها إلهي الشيغي أو إلهي أقو أجيبي أضمه ساوى ناكسن أو وناق قيب كمذا ملنا ولا إجمالية أو صلاح بالغو الشيغي وناق وكان أبوهما صالحا ملنا ولا قو فهفاهي خير كي ودق دقي جرين إلهي سبحانه وتعالى بخاشعين وأهايا صلاة دوضة دعاء دوضة عبادة دوضة ضد إلهي أخضع صن ضد إلهي خاشع أي أهايا خشوع الرادي أول ما يفقد في هذه الأمة الخشوع ولا لي وحا أمضان أقوه الرئي لقى قاضي يسيد النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي خشوع أوي أثر عن حوق بضنينا وحا لقو الشاقي إن يعني مساجد لقيا بإنها صوقة شو انت صددي أي جوغان وقف خاشع أيضا كوارك بمعنى وحدة عيوي انت صددهم بيلجوغ على غيابة وبقلالة أمضي مؤمنين تاهد مسلمين تاهد وقف خاشع كويدنا خشوعه ودرجة صرع قلبي إنه جبيه إلهي سبحانه وتعالى يعني هوس جوجو إلهي بريه وإلهي أمر كيس أدبع سنيه هي عبادتي أدبع سنيه أي خشوع تصنيه مركا وكانوا لنا خاشعين بيري الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وحقو حفظي ذرية ديسي وناقى إلهي سبحانه وتعالى وشاقى الله سبحانه وتعالى ونكبري والدكنا وجعلي هي إن المهيسو أي هاقاقان والدكنا فطركها كو أبو رنويه مركا إنو إلهي سبحانه وتعالى هاقاج مركو إلهي سبحانه وتعالى وكو أماني وناقيس أي جائز لسي
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلهي سبحانه وتعالى وامتحان نبي الله إبراهيم ولما يستر امتحان وكباس قال إني جاعلك للناس إماما جائزة دي واتاس يا أبا القدكي إني جاعلك للناس إماما ضدك أيام وحن كاقد يا متك هجامية oo lagu daydo oo ugu horeeyo hormuudka u ah oo imaamka u ah ayaan kaaga dhigay qaala wa min dhurriyyati caatifadii ba qaaday ilmahaygana ilaahu ka dhig imaamyahu ilaah ilmahaygana ilaahu sii darajadaas qaala laa yanaalu cahdi adh-dhaalimiin ilmahaaga haa kuwa wanaagsan way helayaan imaamnimada laakiin kuwa dhaalimiinta ah oo kufriga shirkiga ku dhacay oo ilmahaaga ka mid ah ama ballantii furay oo caasiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dulmiga galay kuwaasu ma helaan ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalgudkiisa wanaagsan iyo inuu imaam ilaahay ka dhigo ma helaan walidaalika ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay qisadii nabiyullaahi muusa وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سورة الأنبياء إلهي سقوا أبلان قاضي وحليه وجعلناهم أئمة إلهي وحكوا ورمي زكريا وحكوا ورمي إسماعيل وحكوا يعقوب إسحاق وإلهي سبحانه وتعالى أوهبي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين هل كانوا عابدين حق وخاشعين إلهي سبحانه وتعالى ضد جانسن أو إلهي خاشعين أو توبت كينية أو زكدي الصدقة أديرينية أو عملك صالحة أديرينية ويا إلهي سبحانه وتعالى سكيري نبي الله إبراهيم دعاء سوي ذرية إلهي سبحانه وتعالى صاص وحفظي ولذلك أيا لقى شيء إن السلف صالحين تاكمدا علماء دي وناك سنيد وحويلك سكوير ماندو صلاة وحن أبضية إن إلهي سبحانه وتعالى أو إذن حفظيه أديك إيا ولا لها قريقا كونه سنة بقول إيا أفرتن ختمه أيان كو ختمي بوير إنت قرآنك أن كو ختمي إنت أن لتشوكي هاد بقول إيا أفرتن ختمه أيان هلكا كو ختمي قرآنك كريم كا هبين كينا صلاة أيو أتاق ننجري سيدرية دي إلهي سبحانه وتعالى ما هم معنى هذا إنه درية أتو كان إياه إلهي بو أتو كان إياه خاشع إياه لكن وحو هدنني يسنية إنه إلهي سبحانه وتعالى ذرية دي سنة أكو حفظيه مركا والدين توحى الربا إني أددالان أو عبادة إلهي سبحانه وتعالى كد دالان نبي عليه الصلاة والسلام هدي اللي باتو كنت ماضو إلهي سبحانه وتعالى بو عرجل لكن هدي أن ولا ليال وحسك خصوص إنه أسبابها لو بهي والد كونوا قاطه أولا وحويه وحكا توفيق إلهي سبحانه وتعالى إلمها قار وناكسنه ويكسر بحان أو إلهي بتوفيق ده هي لكن أدق واحد هذا هي السببته إن الله تماضو هداية التوفيق إيه هداية الدلالة لبضع سوي أدو هداية الدلالة على قربة هداية إيش الدلالة هنون أنت إن تكتو سيسوه وضضا وناكس أما هداية التوفيق إلهي بحية والنبي يدي بقاركود أويا المهد نبي الله نوح شعارك هلك هذا إنه قيل يا بني اركب معنا بليه ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء والكيسي ويه نبي صالح ويه من أولي العزم من الرسل ويه إلهي سبحانه وتعالى ويلكاس قال ذي بو لها فطي أو لها لك سمي مع داعي ربي سبحانه وتعالى هداية توفيق مسين توفيق ذا إلهي باهي لكن أدقوا وين هداية ذا كد ذا شو إلهينا سبحانه وتعالى وبرده وحكرت أو كم ذا oo waxyaalaha ka qayb qaadanaya walaalayaal ilmaha inuu hagaago asbaabaheeda dabcan saan marar sheegno labada qof oo ilmaha ilaahay ka dhex beeraya inay dad saalixiin oo isdoorta noqdaan gabadhuna inay ninka ku doorato nin saalixa nin khamarjiya haddii aad guursato yacni duriyadda ka soo baxaysa ilaahay wax waa ka keeni karaa laakiin haddee wuxuu noqonayaa khamarji inuu dhalo marka yacni waa sababtii ma aadan qaadan وحي معجزة إلى حقيقة كيما هذا وماشي ولذلك أي إلهي سبحانه وتعالى نقول أمريا إن أين مؤمنين أجورين مؤمنات كان كجورس إنه إلهي سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين رجوي حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ما هذا عي ربيه أولئك يدعون إلى النار أولئك كوا أن يذكر بينه قال الله
yadcuuna ila annaar naar bay idin hogaaminayaan wallahu yadcuu ila aljannati walmagfirati biidnih wayubayinu aayaatihi linnaasi lacallahum yatadakaruun marka waa bayaan cad weeye marka horeba guurka iyo doorashadiisa ku dooro wanaaga nebiguna calayhi salatu wasalaam waa kii yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu fazawijuuhu idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu diintiisa iyo akhlaaqdiisa dabeecaddiisa arrinkaasna waa in aad loogu baraarugsanaado dabeecadda iyo diinta waa in lagu doorto ninka gabadha la siinayo ninka gabadha la siinayo waa in diin iyo dabeecad waa nin diin wanaagsan keliya inaad tiraahdo kifaaya maaha intuu nebigu calayhi salatu wasalaam uu sheegay oo diin wanaagsan waa maxay awaamirtii wuu la yimaadaa la amray waajibaadkii salaadiisii zakadiisii intii waajibka ahayd waa la yimaadaa xaaraanta iyo kabaa'irtana waa ka dheeryahay diintu asalka intaas wey sida xadiiska jibriil ku cad ataakum jibriil liyucallimakum diinakum isaga isfasiraya marka diintiina arkaantii islaamka arkaantii iimaanka inuu xifdisan yahay weeye uu xifdinayo xumaantiina ka fog yahay laakiin nebigu intaa kuma gaabsane diinahu wa khuluqahu weye diintu akhlaaqdu diintay ka mid tahay laakiin wuxuu si gaara ugu tilmaamayaa ahamiyadda ay u leedahay ama muhiimadda ay u leedahay guurka iyo inuu guulaysto guurkaas uu guur wanaagsan noqdo akhlaaqda ayaa tiir weyn u ah dabeecadda iyo la socodka iyo la dhaqanka ayaa tiir weyn u ah ninkii haddaanu marka dabeecaddiisii fiicnayn ama waxyaalo ceeba xaggii akhlaaqda uu leeyahay yacni waa laga tegayaa looma guurinayo waxaa ka mida maxaa ka mida waxaa ka mida bakhaylnimada waxaa ka mida dilka gabdhaha waxaa ka mida waxyaalaha la mid ah ayaa ka mida akhlaaqda arrinka labaad ikhtiyaarkaas haddii gabadh iyo ninkaba ay doortaan sababo wanaagsan keeni kara weeye ilmo wanaagsan gabadhu hadday tahay gabarh caabidada gabadha aad dooratay oo cibaadadeeda iyo salaadeeda iyo zakadeeda iyo sadaqadeeda masaakiinta say ugu naxariisato cibaadada ilaahay say u gudato ilaahay kitaabkiisa say u jeceshahay akhlaaqdeedu say u jaban tahay yacni qoftaasu badanaaba ilaahay subxaana wa tacaala duriyad saalixa inuu ka keeno sidaasoo kalena wiilku ayaa laga rajaynaya arrinka labaad waxaa weeye ducada walaalaya oo ilmaha asbaabaha ugu weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala ku islaaxiyo waalidiintuna u qaataan sabab waa ducada weyn ducada inta aanay iman iyo ducada marka ay unkamayaan iyo ducada markay yimaadaan kadib iyo wakhti walba ducada inta aanay iman rabbi hablii min asaalixiin siduu yidhi nabiyullaahi ibraahim rabbi hablii min ladunka duriyatan tayibatan inaka samiicu ducaa فهب لي من لدنك وليا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا ilmo wanaagsan wey ilmaha ilaahay la weydiisanaya marka ducada hore waa loo baahaya markay ninka iyo xaaskiisu isu tegayaan oo wax kala doonanayaan ducada inaan la ilaawin wey aadaabtay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamo hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaan oo shaydaanka ka cudubilaystaan ilaahay duriyad wanaagsan u qadaro duriyaddaa shaydaan ma taabto taasuna waa asbaab weyn dadka badankoodna way ilaawaan ama maba yaqaanaan xaqiiqatan waa arrin dhib badan weeye marka taasna waa wakhtiga ay dhalanayaan iyo markay dhashaan kadib oo iyadana lagu dadaalo duriyadooda inuu ilaahay muqiima salaad uu ilaahay ka dhigo sidii nebiyada aan ka maqlaynay rabbi ijcalnii muqiima salaat wa min duriyati rabbana wataqabbal ducaa rabbana ighfir lii waliwaaliday walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ilaahay subxaana wa tacaala duriyadii loo baryo oo loo duceeyo ee la tawjiihiyo waxaa kaleeto oo ka mida tanshi'ada wanaagsan tanshi'ada wanaagsan yacni tarbiyada wanaagsan tarbiyada wanaagsan qur'aanku waa inoo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu luqmaan ayuu inoogu caddeeyey walaalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ilmihii marka wuu tarbiyeynayaa tarbiyada usuusheedii ama waxyaalihii tiirarka u ahaabaa ku dhan ilmihii in la baro tawxiidka awalan in la baro waalidiinta iyo ixtiraamkooda iyo baarinimadooda iyo xuduudda ay leedahay in la baro ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo caqiidada toosan ee saxda ah in la baro salaada oo tiirkii islaamka ah oo lagula sabro oo lagu ababiyo oo inuu maaragtay si wanaagsan u itqaaniyo lagula dadaalo in akhlaaqda wanaagsanna la baro oo anshaxa wanaagsan iyo dadka suu ula dhaqmayo socodkiisa iyo hadalkiisa iyo dadka la dhaqankiisa inuu la baro intaasu waxa weeye asalada arkaanta akhlaaqda wey iyo tarbiyada wanaagsan marka waalidku hadduu intaa ugu dadaalo cibaadadana uu ku dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu duriyadiisa islaaxiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u ka rajaynaya innaguna sababtaynu leenahay inaynu la nimaadno towfiiqdana ilaahay baa haya ducadana in lagu dadaalo had iyo jeer cibaadada iyo ijtihaadkana lagu dadaalo walaalayaal taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha ku xifdinaya rabbi subxaanahu wa tacaala marka hadalka iyo khitaamkiisu waxa weeye walaalayaal inaynu ku dadaalno cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee kitaabkiisu ugu horeeyo wax qalbigu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jilciyo oo addoonka ilaahay qalbiga ugu xirmo waxa ugu weyn kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo weliba lagu tukado oo weliba habeenkii lagu tukado wa afdalu shayin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga qofka uu ilaahay ku xirmayo allana subxaanahu wa tacaala uu kaga helayo ilaahay subxaanahu wa tacaala khushuucsiya iyo raxamaadkiisa iyo barakaadkiisa addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaarka ah ayuuna ku xusay qur'aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad qur'aankao dhan eegtaan min awalihi ilaa aakhirihi addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku kasbadaan alle subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa waxa weeye kitaabkiisa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala salaadooda khushuucooda ku xirnaantooda habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo jeedaan wakhti walbana ay xusaan ghaafiliinna aanay ka ahayn alle subxaanahu wa tacaala camalka saalixaayoo dhanna ay u dheereeyaan wixii xaaraanana ay iska dhowraan oo iska ilaaliyaan oo ka digtoonaadaan oo ka fogaadaan iyaga iyo dadkuna aanay meelnaba isugu iman meelnana iskuba maagin haba yaraatee dadku inay iyaga soo maagaan oo la adyadeeyo oo la maago ilaahayna uga hiiliyo taas uun mooyaane inayan wax kaleetaba lahayn marka insha allahu tacaala kelimaddaydii intaasaan kusoo koobayaa aynu ku dadaalno walaalayaal alle subxaanahu wa tacaala cabsidiisa xuskiisa cibaadadiisa
qur'aanka kariimka ah taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala duriyadda ku xifdinaya allahuma axfad duriyaatina wa duriyat almuslimiin اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ محمد إدريس إلهي سبحانه وتعالى الله كأبا المريو annagana ilaahay subxaana wa tacaala carruurtanada baar allah nooga dhigo sheikh waxay ka timaaday gabdhaha dumarka gabar walaalaha ka mid ah waxay tiri waxaan haystaa bay tiri caruur waxaa jira bay tiri dhib oo ah ilmihii aan dhalay markii ama aan idhaahdo ilaahay diintiisa raacdo oo gabdhaha is astura ninka ilmaha dhalay aabbahood ah wuxuu leeyahay carruurta ha canaananin dhaaf iyaga ayaa qaadanaya marka anigana waxaan mar walba ku dadaalaa inaan maarkino gabdhihii u sheego isagana wuxuu leeyahay dhaaf iyagii xorriyad aynu siino markaan ka wada hadalnana waxaa imaanaysa inaan aniga isagii furitaan la isugu maaragtay arrintaasi ay timaado hanjabaada الحمد لله والدك وحوي إني المها كتربيان سيدنا الشاقني وكو أبابيان إلهي سبحانه وتعالى طاعديس سيد إلهي سبحانه وتعالى أويري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية النبي عليه الصلاة والسلام سيري مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليهن ل10 toddoba ku bara salaada 10 ku dila oo ku garaaca marka ilmaha in tarbiyada wanaagsan ee lagu ababiyo gabdhaha in lagu ababiyo xijaabka iyo salaada iyo maaragtay akhlaaqda wanaagsan iyo xishoodka wiilasha lagu ababiyo sidaas oo kale xishoodka iyo salaada iyo cibaadada iyo akhlaaqda wanaagsan dhammaantoodba in lagu ababiyo gabdhuhuna waxay la dheeryihiin xijaabka intay yar yihiin baana la rabaa in lagu ababiyo oo hooyooyinku badanaaba way fududaystaan gabadha haddii iyada oo 3 jir 4 jir ah surwaalka iyo dharka qaqaawan iyo waxaas haddaad ugu bilowdaan oo tiraahdaan way yar tahay hadhow markay weynaatana dharkii qaqaawanaa ay ku ababtay bay doonaysaa marka mar walbaba iyadoo aan maaragtay gabadha yarta ah dee maaragtay xijaab aan ilaahay lagu fardinayn lana saarahayn laakiin dhar xushmadaysan had iyo jeer ugu dadaala suuqyada markaad tegaysaan dharka gaaladu labisato ha u soo gadinina u gada oo isku daya dhar xushmaysan xataa hadday yar tahay inaad u gardaan camburada u gadaysaan waa inaad doorataan finaanadaha u gadaysaan waa inaad doorataan dharka ay hoos ka gashanayaan waa inaad u doortaan maaha in la yidhaahdo ilmo yara iyada waxba male marmarka qaarkood waad naxaysaa dhulka markaad marayso gabdhaheenni yaryaraa oo waxaad arkaysaa loo soo geliyey dhar qaawan marka gabadhu hadday 7 jir tahay 6 jir tahay 8 jir tahay dhar qaawan in loo geliyo maaha xataa hadday intaa ka yar tahay ma aha maxaa dhacay waxa weeye in lagu tarbiyeeyo xushmada iyo xishoodka iyo dharka wanaagsan iyo asturaadda la rabaa in wixii wax ka badan la saarana ma aha yani laa ifraad walaa tafriid lamana rabo tafriid lamana rabo ifraad gaabisna lama rabo xadgudubna lama rabo wiilashana waa saas oo kale amaa haddii aabbihii uu leeyahay gabadhii yaanba xijaab gabdhihii la amrin yaan salaadii la amrin xorriyaddooda ha loo daayo aabbahaasu haddee waxa weeye aabba doonayaa gurigiisii gacantiisa inuu ku kharibo yuriidu an yakhriba beytahu biyadihi yani isagii baa la rabay inuu caruurta amro oo xaaska amro xijaabka iyo salaada iyo wanaagga iyo qur'aanka iyo khayraadka inuu amro inuu ku farxo markay sameeyaan marka ay ka haraanna uu ka caroodo ama uu maaragtay ka murugoodo ayaa la rabay laakiin haddii waaqicusaa sheegaysa uu yahay ayaan daro weeye waa in loo naseexeeyo waa in maaragtay isagana ilaahay subxaana wa tacaala loo baryo inuu alle subxaana wa tacaala soo hanuuniyo furiinkan ayaan lagu degdegin guryaha burburintoodu ma fududa innaga waxay noo sahlanaatay wixii gabadha iyo ninku isku khilaafaanba in markiiba guriga furiin lala soo boodo ama xagga ragga ama xagga gabdhaha asbaabahana ma garanayo asbaabo badan baa laga yaabaa oo qurbaha yaalla inay sabab u yihiin laakiin walaalayaal yaan furiin lala soo boodine guri burburay
ma ciyaar maaha waa in lagu dadaalo inaan guriga ciyaar lagu burburin wallahu aclam saa'ilkeena dhinaca ragga ka timi wuxuu yidhi aabba baan nahay buu yidhi gabar aan dhalay oo da'deedu ay gaadhay 17 jir ayaa waxay ii keensatay wiil Soomaaliyeed gabadhii markay wiilkii ii keensatay inay guursato ayaa hooyadii ilmaha dhashay waxay tiri waxaan rabaa bay tiri gabadhu waa yar tahay yeysa guursan ee jaamacad ha dhigato waa lan dhex gala arrintii gabadhiina waxay leedahay ilaa ninkii in la ii guuriyaan rabaa maxaan sameeyaa aad igula talin lahayd sheekhow alxamdu lilah horta waxyaalaha yani sanadka iyo arrimaha la xiriira iyo nidaamyada iyo andimadaha ku jirtaan taas dee nidaamkaad kolley waxyaalaad ku khasbantihiin baa jira waddamada aad joogtaan nidaamyo ka jira baa jira oo inaad raacdaan aad maaragtay ilaalisaan ku khasban tihiin laakiin si guud ahaaneed baan u hadlaynaa gabadhu hadday guur gaarto ma tacliintaa lagu horumarin mase guurkaa lagu horumarin yacni hadday isqabtaan sidee loo kala saaraya taas un baan si guud ahaaneed uga hadli karnaa waxa weeye tacliintu waa muhiim tacliintu iyo jaamacadda iyo waxbarashada muhiim bay tahay guurkuna waa muhiim laakiin haddii labada isqabtaan ama la iswaafajin kari waayo waxaa wanaagsan marka hore in la isku dayo in la iswaafajiyo oo gabadha iyo wiilka guursanaya ku heshiiyaan gabadha inay jaamacaddeedii wadato inay jaamacaddii dhigato dad badan baa jira oo iyadoo gabadhii xaas tahay jaamacaddii dhammaysato haddii laakiin aanay suurtoobi karin yani guurka ayaa ila muhiimsan in yani la hormariyo waxa kalena insha allahu tacaala way hagaagayaan arrinkan wuu bannaan yahay oo waa diidi kartaan laakiin natiijada ka dhalata hadhow waxaa qaadaya waalidiinta ama gabadhii diiday waxaana waaqica ku aragnay waxyaalo badan oo gabdho badan oo markii hore intay tacliinta xoog saareen waagii dambe tareenkii ka tegay oo dhaafay tareenkii guurka ila istaagi maaye cumriguna wuu socdaaye gabadhuna kullama ay sii weynaato hadhow albaabka waxa soo garaacaya way yaraanaya markay nimankii sii yaraadaan albaabka soo garaacayay hadhow yaa ka mas-uula arrinkaas gabar baa beri warqad ay soo qortay waxay tihi shahaadaadkaygo dhan qaata oo bal nin ii keena shahaadaadkan ilaa iyo doctoraa baan waday waa kana shahaadooyinkii qaata kulligood ilaa PhD laakiin nin ma hayo caruurna ma hayo gurina ma hayo marka waxa weeye gabadha yani guurka xaggiisa in la rajaxo haddii nin munaasiba gabadhii dhaqanaya oo dhowranaya uu jiro insha allah tacliintana waa la helayaa waa arrin muhiima waa in kaalinteeda waqtigeeda ay qaadato taladu waa saas wallahu aclam